ay maanta isugu yimaadeen qowmiyadda Digil iyo Mirifle kaas oo looga arinsanayay kaalinta qowmiyadda ka qayb qaadashada kacdoonka dib u xoreynta dalka si loo burburiyo argagixisada looguna xoreeyo deegaanada ay haystaan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta saraakiisha aqoon-yahanada culimada haweenka iyo dhalinyarada qowmiyadda ku abtirsada Digil iyo Mirifle waxaa falanqayn dheer kadib la isla guddoonsaday kana soo baxday shirweynaha qodobada hoos ku taxan qodobka koowaad ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa kacdoonka bulsho ee ay beelaha Soomaaliyeed iskaga qaadayaan heeryada argagixisada al-shabaab kuwaas oo ah naxariis laawayaal caqabadna ku noqday waqti dheer amniga dalka horumarkiisii iyo dowladnimada dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan bogaadinaynaa kaalinta dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ay si buuxda u garab taagan tahay shacabkeedii kuna gacan siinayso sidii ay uga adkaan lahaayeen adowga argagixisada ah labo waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa kaalinta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka sida hagar la'aanta ah ugu qalab qaatay la dagaalanka argagixisada guulo waaweyn ka soo hooyay saddex waxaan si buuxda u cadeynaynaa in qowmiyadda Digil iyo Mirifle ay si wada jir ah u go'aansatay in si dhammaystiran uga qayb qaadato kacdoonka iyo gulufka ciidan ee ka dhanka ah argagixisada ka bilowday dhammaan deegaanada dalka isla markaana qowmiyaddu ay u qalab qaadatay xoojinta kacdoonka hubeysan ee ka socda deegaanada guud ahaan gaar ahaan kuwa beesha ay degto ama qowmiyaddu ay degto afar waxaa la isla qaatay in argagixisadu aysan gabaad ka helin deegaanada ay qowmiyaddu degto isla markaana aysan noqon halka firxadka argagixisada ay deegaanada kale ee ka soo jabay ay gabaadka ka dhigtaan shan waxaan diidannahay in midabta koor lagu sameeyo xubnaha argagixisada ah ee gacanta lagu dhigo loona sawiro inay matalaan qabaa'il gooni ah ee ay ka dhasheen ama deegaano gaar ah oo ay ka soo jeedaan waxaana ku baaqaynaa in loo arko xubnaha argagixisada ah koox burcad ah ee aan matalin qabiil diin iyo deegaan gaar ah midnaba lix waxaan ugu baaqaynaa xubnaha ka midka ah argagixisada inay iskaga soo baxaan isuna soo dhiibaan ciidanka qalabka sida noocyadiisa kala duwan kana toobad keenaan dembiyada waaweyn ee dalku ay ka galeen iyo dadka Soomaaliyeed toddobo waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha hay-adaha dowladeed ee ku shaqada leh in ay kacdoonka ka socda deegaanada ay beeshu degto ay siiyaan mudnaan buuxda ayna garab istaagaan kacdoonka ka socda deegaanadaas toddobo sideed waxaan si adag ugu baaqaynaa in la xoojiyo gurmadka abaaraha lagu taakuleynayo shacabku ay abaartu daran saameysay meel walba oo ay joogaan sagaal ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qowmiyadda Digil iyo Mirifle inay u midoobaan la dagaalanka kooxda khawaarijta aad iyo aad u mahadsantiin